xaqiiqada anoo sheegaya ciidanka shabaabta magaranaysaa xerada inta aan ka aruurinay aanu meydkooda asturay 114 ayaan waxaan ka qaadnay xerada. sidee wax u dhaceen maalinkaas isniinta? bismillaahir rahmaanir rahiim waxay wax u dhaceen subax hore ayay buundada ciidankii joogay weerar ku soo bilaabeen. ciidankaasuna markuu la dagaalamay kadib waxay toos u soo aadiyeen qaraxii iyo awoodoodii badnayd xerada aan joogno saldhigga Buulaxaaji. halka sidaas ayuu u dhacay weerarku. qaraxa sida u maareyseen gaarigii qaraxa waday? qaraxa waxaan u maareynay qaraxu bir kuma gadaamnayn gaari buu ahaa ciidankooduna uu ka dambeeyay. waxaan ku maareynay taayirada ayaan qori RPG kala dhacnay markii taayirada ay ka fadhiisteenna waxa weeye waa qarxi gaarigaasu qaabka ayaan ku maareynay. wiil nafti hura oo naga shiiday ayaana magaranaysaa isu dhigay siday tahayna magaranaysaa waajibaadkiisa u gutay. waa gartay wiilka marka qaraxii gaarigii miyaa dilay? qaraxii gaariga ayaa dilay oo finiinkii gaariga ayaa soo gaadhay sida ayuuna ku shiiday. qaraxa markaan fashilinay kadib waxaa dhacay iyagoo qayliyay ayay weerar xerada ku soo qaadeen. dagaalka imisu socday? ilaa iyo 12 inta la gaadhayo buundada iyo saldhigga iyo ceelka nawaaxiga ayuu ka socday. 12 markii la gaadhay iyo daqiiqadana waxaa qaraxu soo gaadhay xerada. qaraxu markuu dhacay kadibna wuxuu dagaal ka bilowday xerada gudaheeda. waa gartay meequu socday qiyaastii? 4 saac oo barqnimo ayaan kala food qaadnay. xerada si rasmi ah wuxuu uga socday 4 saac. marka 4 saac oo barqnimo uu dhamaaday? 4 saac oo barqnimo waxa weeye baaqigoodii ayaa magaranaysaa lagta talaabay. aroortii markii ay magaalada soo gaadheen oo saldhigga iyo meesha ceelka wadada loo maro ay miina galiyeen ninkii ciidanka watay wuxuu u khudbadeeyay magaalada. dadka shacabka ahaa waxa weeyaan laba xaalo labadaba uu sheegay qayb uu hanjabay oo wuxuu yiri waxaad la shaqeynayeen murtadiinta waxaan idinka qaadaynaa talaabo marka aan ka soo dhamaanay xerada. qaybna wuxuu yiri waxa weeyaan waa dad mujaahidiina waan abaal marin doonaa. labada qaybood labada eray buu ku hadlay. dadkii iyagoo aad u cabsanahaya oo ka yaaban intuu ninkii xerada ka soo food qaado ku soo laabto waxa weeyaan ayuu isagii xerada ku qurbaxay ninkii dadka u hanjabay. aad bay markii dadkii u farxeen. waxa weeye waxaa jira nin shacaba oo xerada agteeda degan oo aad u jirdileen ninkaas oo ay ku jirdilayeen natus xerada oo irideeda iyo magaranaysaa meelaha laga gala natus ninkaas oo aad u jirdileen ayaa haddana jooga Buulaxaaji oo magaranaysaa nabarada ay ku yaalaan oo shacaba. farsamada aad ku dagaal gashay ma sheegi kartaa? farsamada aan ku dagaal galay maadaama aan sargaal ciidan ahay ma faahfaahin karo. social media kama faahfaahin karo waayo khidadahayga iyo qaabka traininka dagaalkayga in magaranaysaa aan faahfaahiyo mar ma jeceli. xaqiiqada anoo sheegaya ciidanka shabaabta magaranaysaa xerada inta aan ka aruurinay aanu meydkooda asturay 114 ayaan waxaan ka qaadnay xerada gudaheeda oo aanu magaranaysaa meydkeeda asturoon gaari saaray. xubno kale oo waxaa jira ilaa 19 xubnood oo dagaalkii kadib aan ka soo aruurinay meydkooda baadiyaha iyo magaalada koonaheeda aan ka soo aruurinay oo magaalada aan ku dhex duugnay iyo xubin dhaawac ah oo 20 ku ah oo halkan aan isaga oo dad qaba keenay maadaama uu jidin jabay 4 habeen oo xirku ku jirayna markaan biyihii afka saaray oo halkan isna ku geeriyooday oo ku dhintay uu jidin jabsanaa markii saacanaha afka loogu saaray waxa weeyaan way naftu weydiisay marka ninkaan halkan ayaan isna ku xabaalay magaaladaan u dhiibnay magaaladan ku nidhaas. hub maxaa gacantiina galay? hubkuniyo aad u tira badnaa gacantanada galay. waxa weeyaan qoryaha fudud akayga waxa weeyaan ilaa 84 qori oo qoryaha fududa. qoryaha waaweyna 15 qori oo isugu jira BKM iyo RPG ayaan kala wareegnay. social media hayna yaalaan cidii magaranaysaa faahfaahinteeda u baahan oo dhalinyarada dhan baa soo dhageysay. waa gartay Cabdikaafi waxyaabaha la idinku eedeeyo birjeex waxaa ka mid ah sida aad meydka ula dhaqanteen in meydka baawur laga soo tuurayo marka dhulka la keenayo soo meydka si fiican looma asturi karin. cabdirsaaq aad baad mahadsan tahay. meydkaas waxaan leeyahay runtii waan asturay aadna waan uga taxadiray maadaama meydku aad u tira badnaa goob dagaal aan joognay hal gaari baan ku soo uruurinaynay. halkii gaari markaan ku soo uruurno qaab kale oo aan ku maareyn karay ma jirin. waxa weeye qaabkaas waan dejinay kismaayana u raray waan asturay meydkii wax hadda aan isleeyahay meydka waad u geysateen oo dhibaato ma garanayo. Cabdikaafi meydka inaad ku dul dhaantaysaanna ka waran soo lagama fiicneen? ma aanan dul dhaantaynin dadku dee meelaha kale in meydka ahayn bay dhaantada ku tumanayeen oo social media dadka isu geegeynayay. anagu meydka dushiisa waan ilaalinay aniga ayaana mas'uuliyadda qaatay oo markaan dhignay qof ku dul dhaanteeyay iyo qof ma garanaysaa dul istaagay midna ma lahayn. wixii qalad ah oo maalinka dhacay ama haday jiraan dad si kale u arkay in meydkaas si qaldan loola dhaqmay ma qaadaysaa wixii mas'uuliyad darro ah? waan qaadayaa
shaqadu way ballaarnayd dadkuna siyaabo kala duwan baa laga yaabaa inay uga falceliyaan markii meydka arkaan marka wixii ka baxsan gaariga meydkii laga dejinayay oo maadaama meydku fara badnaa ay ciidanka qaarkii u tabar waayeen dhiiggii iyo meydkii magaranaysaa inay ay si degan uga dejiyaan oo xaalad kale ku maareen aan garan weynay intaa way jirtaa in magaranaysaa la duubay oo dhalinyaradu magaranaysaa mawlada ay ka duubanayseen laakiin waan qaadaynaa mas'uuliyaddeeda waxa weeyaan waana dadaalay baan leenahay meydkaas waan asturay si fiicanna waan u aasnay alxamdulilah maxaad ka baran kartaan wallaahi cashiro badan baan ka baranay waana sii dadaali doonaa insha allah cabdikaafi korneyl birjeex taliyo waa tahay sarkaal kale oo ku daawanayo hadduu fursad u helo ama militariga federaalka Soomaaliya ha ahaado ama daraawiishta kale ee dawlad goboleedyada taladaas siin lahayd maxay tahay maxaase laga baran karaa taladan siin lahaa waxay tahay marka koobaad in ilaahay lagu xidhnaado ciidanka akhlaaqdiisa la dhiso oo maartay laga taxadaro waxa kale oo aan rabaa in laga daydo kalsooni in lagu dagaalamo ayaa fiican oo qofku magaranaysaa uu kalsooni ku qabo ciidankiisa iyo isaga naftiisaba uu maartay kalsooni ku qabo cadawgana maxaan ku dhahdaa aan loo beer jileecin oo la iska dhiciyo laba ama saddex shay oo ciidankaaga uu guul ku gaaray ii sheeg waxaa ka mid ah akhlaaqda ciidankaygu waxa weeyaan balwad ma laha oo askariga markii la fasaxo kismaayo inuu balwad ku isticmaalo mooyaane halkan wax balwad la yiraahdo oo jaad la yiraahdo oo lagu cunayo ma jirto waxaa kale oo aan ku gaarnay guusha ismaqalka iyo kala dambeynta aad iyo aad magaranaysaa 100% ayuu ciidankana isu maqlaa kala dambeyntiisa iyo akhlaaqdiisuna ay u dhisan tahay waxyaabaha aan guusha ku gaarnay bay ka mid tahay waxaa kale oo ka mid ah cibaadada rabbi iyo maxaan ku dhahdaa dadaalka oo aan maartay ciidanku uu salaadiisa tukado oo ilaahay ku xidhan yahay waxyaabahaas aan guusha ku gaarnay saadka iyo hubka raashinka waxa weeyaan ciidanku saad iyo hub hadduna lahayn iyo maartay maba mus dagaalameen marka taas waa noo dhameystiranta cabdikaafi xaqiiqa miya in askari birjeex ka tirsan uusan jaad ku cunin xeradan taas waan ku xaqiijinayaa askariga markii la fasaxo ee kismaayo tago waa laga yaabaa inuu qaylo laakiin halkan lagama ogola jaad balwad kalena iyada hadalkeed bay iska daa waxyaabahan kale ciidanka ay isticmaalaan kaniinadan iyo xashiishka ka waran maya nin jaad cuni waayey oo jaadka laga celiyey kiniin iyo xashishad ma garanaysaa ma uu cunayo mana ayna dagaalameenba hadday kiniin iyo xashishad cunayaan ciidankanagu marka taas waa ka madax bannaannahay mana isticmaallo 100% baan ku kalsoonahay waxaa laga yaabaa meydadkii baabuurta laga soo tuurayey in si un loo dhibsado waxaan iyo jeclaan lahaa dadka dhibsanaya meydadka inay dhibsadaan oo ka xumaadaan dadka maanta lagu laynayo liido iyo muqdisho annaga waxaa walaalahana oo aan aad uga naxaynaa oo dhibaatadooduna damqaysaa maanta dadka lagu xasuuqayo maxaan ku raayay masaakiinta ee shacabka ah maanta guri aan laga ooyeen magaalada muqdisho ma jirto dad aad u tiro badan oo shacab ayaa lagu laayay oo burmageyda oo dhalinyaro iyo waayeel bay isugu jira waxa weeyaan waxaan aad uga damqanaynaa maantay oohinta maanta muqdisho ka dhacaysa guri aan laga ooyeen ma jirto waxaa walaal nala ah oo jirku noo damqanaya dadka burmageyda masaakiinta ee dhalinyarada iyo shacabka ee maanta daadsan meydkooda iyo dhaawacoodu muqdisho daadsan yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan u soo aaro oo aan cadawga nooca ula dhaqmaya aan anaguna si ka xun ula dhaqana hadii la yiraahdo waxa kale oo ku rajo weynahay shabaab inaan ka tirtiro godanka Soomaaliya waa cadow khawaarija oo arxan darrada ay u geysanayaan dadkana waa midda hadda maanta tusaalaha ay u tahay waxa la yimid maxay u dambeeyay kala sii wado shabaab dhibaatadii geystay waxa u dambeeyay maanta xeebta leedo waxa yaaladii marka aad iyo aad baan magaranaysaa dibinta u cunayna cara horlana aan ugu qabnaa maadaama ay taa hadda dhigeen tii aan hadda ku dhignay iyo tuka darmaan rajaynaa inaan ku dhigna hadii la yiraahdo ugu dambeyntii korneyl cabdikaafi dayib axmed maxaad isku tilmaami lahayd waxaan isku tilmaami lahaa inaan sargaal Soomaaliyeed waxaana rabaa inaan magaranaysaa aan aaminsanahay inaan u soo aaray dadkii Soomaaliyeed ee khawaarij ay hore u xasuuqday waxaana ku rajo weynahay inaan kuwa maanta daadsan meydkooda inaan u soo aaro meydkoodan la aasin hadii la yiraahdo